madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa cambaareeyay weerarkii lagu dilay gudoomiyihii gobolka Nugaal ee maamulka Puntland. madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa ka tacsiyay geerida Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi oo u dhintay qarax ismidaamin ah oo xalay fiidkii lagula eegtay iridda hore ee saldhigga bartamaha magaalada Garowe. mudane Saciid Cabdullaahi Dini oo ku hadlayay magaca dowladda Puntland iyo kan shacabka Puntland waxa uu ka tacsiyay geerida Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Nugaal marxuum Cabdisalaan Xasan Xirsi arxan laawayaasha cadawga ummadda Soomaaliyeed gaadmo ismidaamin ah oo dhaawac ka soo gaaray haddana u geeriyooday ayuu yiri madaxweynaha Puntland. gudoomiyuhu waxa uu gudanayay waajibaadkiisa shaqo oo uu hayo shacabkiisa waxa uuna ku sugnaa xilligaasi saldhigga dhexe ee caasimadda Puntland ee Garowe ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland. madaxweyne Dani waxa uu tiraanyada geerida la qaybsanaya shacabka Puntland gaar ahaan ehelada qaraabada qoyskiisa iyo awlaadii uu ka baxay gudoomiye marxuum Cabdisalaan Xasan. waxa uu alla uga baryayaa inuu dambi dhaaf samir iyo iimaan ka siiyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Puntland. madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa si kulul u cambaareeyay qaraxaasi lala beegsaday saldhigga dhexe ee caasimadda Puntland ee Garowe. waxa uu madaxweynuhu alla uga baryay intii ku dhaawacantay in uu u boogadhayo. sidoo kale waxa uu madaxweynuhu bogaadiyay ka hortagga degdega ah ee ay ciidamada Puntland kaga hortageen cadawga gubaadka ku haya shacabka Soomaaliyeed. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.